Shark aan la jebin karin ayaa weerarta goob shidaal oo badda ka taagan. Garaacisteeda joogtada ah waxay sababtaa in goobtii oo dhan qaraxdo. Warbaahinta Mareykanka ayaa markiiba cadaadis saarta maalqabeenka shidaalka Roger si uu uga jawaabo musiibada. Shirkaddu waxay sheegaysaa inay si dhab ah u qaadanayso shilka. Waxay ku adkaysanayaan in howlaha badbaadintu si nidaamsan u socdaan isla markaana noolaha badduna xaalad fiican ku jiro. Adcar Michel oo ah saynis yahanad ku takhasustay noolaha badda gebi ahaanba ma rumaysna sheekadooda. Waxay raadisaa qof ka badbaaday goobta si ay u ogaato waxa dhab ahaantii dhacay. Qofkii badbaaday wuxuu sharxayaa muuqaal argagax buuxa ahaa. Waxaa soo baxaysa in shaqaaluhu isticmaaleen kiimikooyin khatar badan oo kala diray sagxadda badda isla markaana wasakheeyay biyaha. Cad waxay garataa in sharkani aanu ahayn xayawaan caadi ah. Waa mutant ka dhashay wasakhowga. Iyadoo raadinaysa cadeymo dheeraad ah ayay qortaa kabtan deegaanka ah oo lagu magacaabo Skipper Turk. Turk wuxuu u muuqdaa qof fowdo badan oo dabacsan, balse wuxuu biyahan uga yaqaan si ka fiican qof walba. Wuxuu ogolaadaa inuu cad geeyo goobta qaraxa. Markay gaaraan goobta, tijaabooyinka biyaha ee cad waxay muujinayaan isku darka kiimikooyin sun ah. Waxay ogaanaysaa in xaaladdu aad uga khatar badan tahay sida shirkadu qarinayso. Haddii aad nagu cusub tahay, ha moogaanin muuqaalada xiisaha leh. Subscribe saar, like sharana la wadaag asxaabtaada. Dhanka kale, sharkii mutantka ahaa wuxuu mashquul ku yahay ugaarsiga kuusa ciidamada badda Mareykanka. Sharku wax cabsi ah ma muujiyo wuxuuna ku dhuftaa kuusii weynayd ilaa ay qaraxdo. Laakiin halkaas kuma ekaado. Wuxuu ku boodayaa xeeb uu sawirqaade ka qaadayay sawirro model ah. Sharku wuxuu hal mar liqaa sawirqaadihii. Modelkii waxay isku daydaa inay iska difaacdo iyadoo adeegsanaysa dallad xeebeed, balse iyaduna waxay noqotaa cunto. Qaraxa kuusida iyo maqnaanshaha dadkii rayidka ahaa waxay ugu dambeyn baraarujiyaan militariga. Colonel Caldwell wuxuu diraa 3 askari si ay deegaanka u baaraan. Shark ayaa si lama filaan ah uga soo booda biyaha oo cuna hal askari isagoo dhabarka jeediyey. Labadii kale waxay furaan rasaas, balse xabaduhu ma joojin karaan Shark baabiya quusayaal. Waxay isticmaalaan qoryaha dabka tuura si ay ugu qasbaan bahalka inuu dib ugu laabto biyaha. Militarigu wuxuu markaas diraa diyaarad dagaal si loo duqeeyo Super Sharka. Isla markii duuliyuhu u maleeyo inuu guuleystay, Sharku hawada ayuu uga boodayaa wuxuuna qaniinaa diyaaradii. Diyaaraddu way qaraxdaa, taasoo cadaynaysa in Sharku hadda khatar ku yahay beriga, badda iyo hawadaba. Cad waxay u tagtaa saraakiisha sare iyadoo wadata xog cusub. Waxay sharxaysaa in Super Shark ku soo jiito hirarka raadiyaha. Hoggaanku si fiican uma fahmayo sayniska, balse waxay u malaynayaan inay tahay qorshe shaqayn kara. Cad waxay ku xirtaa sameecad raadiye ah oo ay bam ku rakibtay si ay bahalka ugu soo jiidato. Si kastaba ha ahaatee, Colonel Caldwell wuxuu leeyahay fikrad u gaar ah. Wuxuu go'aansadaa in sida keliya ee loola dagaalami karo Shark socda ay tahay taangi socda. Taangiga socda iyo Super Sharku waxay isku wajahaan dagaal yaab leh oo ka dhacaya xeebta. Taangigu xitaa wuxuu ku guuleystaa inuu Sharka wejiga ka laadho. Sharku ma cabsado wuxuuna bilaabaa inuu xeebta ugu boodo sida ayax weyn. Wuxuu ku dhuftaa taangiga oo rogaya sidii carsaanyo jilicsan. Taangigii isla goobta ayuu ku qarxaa. Cad waxay ogaataa in jirka weyn ee Sharku yahay daciifnimadiisa, waxayna u jiidataa dhinaca god. Sharku wuxuu isku dayaa inuu dabagalo, balse jirkiisa weyn ayaa ku dhiga afka godka cidhiidhiga ah. Cad waxay afka Sharka ku tuurtaa boomb waxkii bamka lagu xiray. Super Sharku wuxuu u qarxaa malaayiin cadcad. Dadkii ka badbaaday xeebta ayaa ugu dambeyn neefsan kara. Qarowgii dhiigga badnaa ee waalida ahaa ugu dambeyn wuu dhammaaday. Haweeney ayaa soo qaadaysa carsaanyo horsasho carab ah. Isla markii saaxiibkeed sawir ka qaadayo ayay aragtaa inuu dhaqaaqayo. Iyadoo shakisan ayay si dhow u eegtaa. Ninkeedii wuxuu u sheegaa inay isla markiiba iska tuurto. Si kedis ah ayuu carabku afka u kala qaadaa oo wejiga uga boodaa ninka. Wuxuu bilaabaa inuu isagoo nool cunayo. Ninku si xoog leh ayuu uga jiidayaa, balse kama go'ayo. Gabadha argagaxsan waxay isku daydaa inay caawiso, balse ma awoodo inay ka siibto. Waxay qaadataa dhagax si ay ugu jebiso, balse carabku si lama filaan ah ayuu u duulaa. Iyadu si khalad ah ayay dhagaxa ugu dishaa saaxiibkeed. Carabkii ayaa markaas si lama filaan ah ugu booda iyada. Markay booliisku yimaadaan waxba ma helaan aan ka ahayn lafaha. Raad dheer oo dhiig ah ayaa ka baxaya goobta. Waxay raacaan raadkii dhiigga ilaa god mugdi ah. Gudaha waxay ka helaan adimo go'an iyo haweeney wejigeedu burburay. Waxay u sheegtaa in horsasho carabsku sidan sameeyeen. Booliisku cabsi ayay dib ugu gurtaan. Waxay meel xeebta ah ka helaan nibiri buluug ah oo calooshiisu madhan tahay. Markaas ayay garanayaan sida xaaladdu u daran tahay. Dhanka kale 3 nin ayaa fadhiya iyagoo sheekaysanaya. Dhowr mutant horsasho carabs ah ayaa si dhuumasho ah u soo gala. Midkood ayaa booday oo ku dhacay saaxiibkood. Carabku wuxuu ku dhagaa wejiga ninka isagoo diidaya inuu ka tago. Carabyo kale ayaa gurguurta oo lugta ka qaniina saaxiib kale. Radu wuu argagaxaa wuxuuna u cararaa gargaar. Wuxuu galaa baar, balse qof walba wuxuu moodaa inuu waalan yahay. Dibadda ayay u saaraan. Wuxuu la kulmaa saaxiibkiisii dugsiga sare Philip. Wuxuu uga waramaa weerarka carabka, balse Philip ma rumaysna. Isla markaas carab ayaa ku soo gurguuranaya dhinacooda. Madiye weligeed mid ma arag, waxayna si xiiso leh ugu taabataa. Carabku wuxuu u muuqdaa inuu xasaasiyad ka qabo cidiyaheeda wuuna suuxaa. Radu farxad ayuu la ciyaaraa qoobka ciyaar. Philip wuxuu u maleeyaa inuu miyir beelay wuuna iska tagaa. Si kedis ah carabku wuu mutant noqdaa. Walax madow ayaa jidhkiisa ka soo qubanaysa. Waxay isu beddeshaa bahal weyn indhahooda hortooda. Goobta Bromka, carab ayaa si dhuumasho ah ugu soo gala goobta qoobka ciyaarka. Wuxuu dhex maraa dadka qoobka ciyaaraya. Wuxuu gaaraa masraxa oo bilaabaa inuu muusiga la ciyaaro. Dijiga ayaa si khalad ah u beddela heesta. Tani carabka aad ayay uga xanaajisaa. Wuxuu ku boodayaa ninkii oo weeraraya. Qaylada ayaa soo jiida
jiidata dareenka qof walba. Carabku wuxuu u boodayaa dhinaca haweeney, balse nasiib wanaag waxay hawada ku qabataa. Deputy Hunter ayaa soo orda, isagoo og sida ay khatar u yihiin ayuu carabka meel fog ku tuuraa. Wuxuu qof walba ku amraa inay si degdeg ah u baxsadaan. Ciidan horsasho carabs ah ayaa qolka kusoo qulqulaya iyagoo qof walba weeraraya. Madiya waxay ka siibtaa dabada carab, waxay u isticmaashaa inay ku mudo carab ku dhegan lugta gabar kale. Muditaano badan kadib carabkii ugu dambayn wuu dhintaa. Goobtu waxay isu beddeshaa dhiig badan iyo xasuuq. Dagaal adag kadib dadka waxay dilaan carab kasta oo qolka ku jiray, balse markaas carab ayaa mutant noqda oo yeesha teendhooyin waaweyn. Ilkihiisu waxay noqdaan kuwo aad u af badan, madaxana waxaa uga baxa qabsatooyin waaweyn. Qof walba cabsi ayuu la cararaa. Lugta macmalka ah ee Philip ayaa ciladaysa wuuna dhacaa. Carabkii weynaa ayaa ku soo dhowaanaya si uu walaalkiis u badbaadiyo. Deputy Hunter ayaa bahalka hortiisa istaaga. Isla markii dhimashadu u muuqato mid hubanti ah, Radu ayaa soo carara. Wuxuu bahalka ku dilaa hal mindi ku dhufto. Wuxuu caddaynayaa inuusan waalnayn, laakiin ciidankii mutant carabska ahaa mar hore ayay magaalada qabsadeen. Qaarkood waxay cunayaan digaag shiilan oo biir cabayaan. Qaarkood waxay ciyaarayaan mashiinada calowga madadaalo ahaan. Waxay xitaa maamulaan maskaxda dadka iyagoo magaalada u bedelay jahannamo nool. Badda dhexdeeda carabka sii weyn ayaa ka soo baxa. Si loo joojiyo bahalada, Philip wuxuu bir ka dhisaa megashark. Markii khatartii carabku xeebta soo gaarto ayuu dagaalku bilaabmaa. Philip wuxuu xakamaynayaa megasharka wuxuuna feed kaga dhuftaa bahalka madaxa, balse carabku waa awood badan yahay wuuna iska caabiyaa. Ka hor inta Philip uusan falcelin, carabku wuxuu ka gooyaa gacanta megasharka. Philip dib uma gurto, wuxuu soo saaraa seef weyn, wuxuu ka jaraa qabsatadii bahalka. Philip kalsooni ayuu dareemayaa, balse bahalku xanuun ma dareemo. Carabku wuxuu soo qaataa qabsatadiisii gonayd wuxuuna uga dhigtaa hub. Waxay isdhaafsadaan weeraro badan, balse dagaalku barbaro ayuu noqdaa. Carabka dhagar qabaha ah ayaa weerara gumaarka megasharka iyadoo Philip aanu fiirinayn. Kadibna wuxuu meel fog ku tuuraa seeftii weynayd. Bahalku si tartiib ah ayuu ugu soo dhowaanayaa isagoo isku dayaya inuu Philip dibadda u soo jiido si uu u cuno. Ilbiriqsigii ugu dambeeyey, Hunter ayaa baabuur ku soo xawaareeya. Wuxuu ka boodaa gaariga waqtigii saxda ahaa. Baabuurkii wuxuu ku dhacaa madaxa carabka wuuna ku qarxaa. Daqiiqadii ugu dambeysay, Philip wuxuu awoodda tamarta gaarsiiyaa heerkii ugu sarreeyey. Wuxuu sii daayaa weerar kama dambays ah oo dilaa ah. Qarax dhagaha jebinaya kadib, motor carabkii wuxuu isu beddelaa hilib carab duban oo cirka ku daadsan. Magaaladii yarayd ugu dambayn waa la badbaadiyey.